محمد الديف oo ah taliyaha guutada Ciise Diin Al-Qassam ayaa loo arkaa maskaxdii ka dambeysay weerarkii lama filaanka ahaa ee ay Xamaas ku qaaday Israa'iil Sabtidii. Weerarkan ayaa sababay inuu ka qarxo dagaal culus oo u dhaxeeya xarakada mujaahidiinta ee Xamaas iyo maamulka Sahnuuniyadda ee Yuhuudda. Hawlgalkan wuxuu sidoo kale iftiimiyay doorka muhiimka ah ee hogaamiyahan ka ciyaaray dagaalka, kaas oo marar badan oo hore ka baxsaday in Israa'iil gacanta ku dhigto amaba ay ninkaasi shirqoosho waxayna raadinaysay in ka badan 30 sano ninkaasi. Maxamed Aldeif oo Yuhuuddu aragto cadawga koowaad ee Israa'iil tan iyo 2014 ayaa ahaa maskaxdii ka dambeysay hawlgalkii military ee noociisa hore loo arag ee Xamaas ay fulisay Sabtidii hore, kaasoo Israa'iil ay la yaabtay. Halyeegan oo 60 jir ah waa hogaamiyaha guutada Ciise Diin Al-Qassam, garabka hubaysan ee xarakada Islaamiga ah ee Xamaas. sidaas darteed waxaa hubaal ah in kaalinta uu ka ciyaaray dagaalka hadda socda ay noqon doonto mid ka mid ah dhacdooyinka ugu waaweyn ee jaangoyn doona iska horimaadka u dhaxeeya Xamaas iyo Yuhuudda. wuxuu Maxamed Aldeif bulshada Falastiiniyiinta ku dhex leeyahay sumcad aad u ballaaran, waxaana taa u wacan guulihii uu gaaray xilliyadii ugu dambeysay guushii weerarkii Xamaas ay ku qaaday Yuhuudda maalmihii la soo dhaafay, kaasoo ahaa mid taariikhi ah oo jiilasha soo socda ay xasuusan doonaan. Maxamed Aldeif dowladda Mareykanku waxay u aqoonsatay inuu yahay argagixiso caalami ah tan iyo 2015. wuxuu cabsi toos ah ku abuuray hurdadana u diiday Israa'iil in ka badan 30 sano. ninkan sheekadiisu waa mid xiiso leh oo muujinaysa halganka dheer ee saraakiisha ciidanka iska caabinta Falastiiniyiintu ka wadaan dhulka Falastiin, taasoo niyad jab ku ah maamulka Israa'iil. waxaana hogaamiyahan guutada Ciise Diin Al-Qassam loo arkaa mid ka mid ah raggii ugu dambeeyay ee geesiyaasha iska caabinta Falastiiniyiinta ee weli adduunka ku sii dhexnool, kadib markii uu dhowr goor oo hore ka badbaaday isku dayo dil oo badan oo ay Yuhuuddu soo abaabushay. Aldeif ayaa dhowr jeer ka baxsaday inay saraakiisha sirdoonka Israa'iil gacanta ku dhigaan, waxayna ugu yeedhaan dagaalyahanka 9 nafood leh. ninkan ayaa dhaawac soo gaaray sanadkii 2006 kadib isku day dil oo ay Yuhuuddu qorshaysay, taasoo keentay inuu indhaha dhaawac ka gaaro, sidoo kalena lug iyo gacan dhaawac ka soo gaadho, balse inuu weli noolaado cabsi weyn ayay ka haysaa Yuhuudda. ninkaasi waxaa loogu yeedhaa marti sababtoo ah hal meel ma joogo wax ka badan habeen. ninkan ayaa sanadihii ugu dambeeyay Yuhuudda iyo reer galbeedku muuqiisa iyo araggiisa ay raadinayeen, waxaana sabab u ah inuu inta badan isqariyo, ayna adag tahay in la raad raaco ilaa heer la gaadho in sawirkiisii ugu dambeeyay la hayo uu ahaa in ka badan 20 sano. sidoo kale lama oga shakhsiyadiisa dhabta ah, inkastoo warbaahintu ay sheegaan in magaciisa saxda uu yahay Maxamed Al-Masri. naanaysta Deif oo la macno ah marti waxaa loogu baxshay maadaama sida la sheegay uusan joogin hal habeen hal meel wax ka badan, oo wuxuu maalinta ku xigtaba ku hoydaa guri cusub si uu uga baxsado sirdoonka reer galbeedka ee Yuhuudda. xogaha yar ee Israa'iil ay ka haysa Maxamed Aldeif waxaa ka mid ah inuu ku dhashay xerada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza sanadkii 1960, sida uu xaqiijiyay wargeyska Mareykanka ee Financial Times, kaasoo la xiriiray saraakiisha shabakadda Shin Bet ee ka tirsan adeega sirdoonka qaybta ammaanka ee Israa'iil. wuxuu ninkani wax ku soo bartay jaamacadda Islaamiga ah ee Gaza. xubnaha isku jaalka amaba asxaabta ahaayeen waxaa ka mid ahaa madaxdii dowladihii hore ee Ikhwaanul Muslimiinka ee Masar. sirdoonka Israa'iil ayaa qiil ka dhigtay markii ay qaban kari waayeen ninkan inay dhahaan Maxamed Deif waa nin xeelad badan, wuxuuna awood u leeyahay inuu isqariyo oo cid ogaan kartaa meesha uu joogaa ma jirto, maxaa yeelay aad uma jecla inuu ka soo muuqdo fagaarayaasha. tiraba dhowr jeer ayaa sirdoonka Israa'iil waxa uu xog ka dhex raadiyey Falastiiniyiinta dhexdooda in ay ka helaan haba yaraatee wax xoga oo ku saabsan Maxamed Deif, sida ay u helaanba xogaha kale ee saraakiisha sare ee Xamaas, balse taasi waa ay ku guuldaraysteen. waxaana 10 sano dil iyo weliba shirqool loo geysanayay hogaamiyaasha ciidanka Falastiin, waxaana ilaa bilowgii 90-maadkii shahiiday rag badan oo ka tirsanaa Xamaas, oo ay ku jiraan shahiid Sheikh Axmed Yaasiin oo la shirqoolay iyo Dr. Cabdulcasiis Rantiisi oo sanadkii 2004 la dilay. Yaxya Ayaash ayaa isna shahiiday sanadkii 1996. Saalax Shahaada oo isna la dilay 2002. Cimaad Aqil oo 1993 la dilay, iyo kuwo kale oo aad u tiro badan. balse Maxamed Aldeif ayaa sidoo kale marar badan ay isku dayeen Yuhuuddu inay ninkaasi dilaan, balse waa uu ka badbaaday. Maxamed Aldeif ma isticmaalo telefoonada casriga ah amaba aaladaha lagu soo dabageli karo hadhowto. howlgalladiisu waa kuwo qarsoodi ah, mana ka soo muuqda fagaarayaasha. dadkii yaqaanay xilliga uu dhalinyarada ahaa waxay ku sheegeen inuu yahay nin caqli badan oo aad u xeel dheer, ammaanada aad ugu fiican, karti badan, waxaana taas u dheeraa in haddii uu damco inuu wax qorsheeyo oo aan la ogaan karin ilaa uu fuliyo. ninkan yaraantiisii waxa uu la mid ahaa raggii halganka ku jiray ee xerooyinka ka soo qaxay. faqriga iyo duruufaha qoyskiisa ayaana ku riixay inuu ka tago waxbarashadiisa oo uu meelo kala duwan ka shaqeeyo,
kadibna waxa uu dib ugu noqday jaamacadda islaamiga ah ee qasa halkaasoo uu ka noqday ardayda ugu firfircoon ee u dhaqdhaqaaqa mabaadida xarakada islaamka ee xamaas amaba masiirka reer falastiin. Aldeef waxa uu ku biiray xamaas sanadkii 1987 intii uu jaamacadda ku jiray waxa uu aad u jeclaa maamulka waxa uuna aasaasay kooxda Caa'iduun bartamihii 1988 waxa uu qaatay shahaadada koowaad ee jaamacadda isagoo oo bartay culumta sayniska. sanadii 1989 Israa'iil waxay ninkan xidhay muddo sanad iyo badh ah iyadoo lagu eedeeyay inuu xiriir ciidan uu la leeyahay Xamaas. waayo aragnimadiisa xabsiga waxay ahayd bilowgii shaqadiisa ciidannimo ee dhabta ah ee uu ugu biiray guutooyinka shuhadada Ciisadiin al-Qasaam. siideyntiisa xabsiga ayaa ku soo aaday markii guutooyinka shuhadada Ciisadiin al-Qasaam ay si weyn uga soo muuqdeen fagaaraha dagaalka oo ay fuliyeen howlgallo dhowr ah oo ka dhana bartilmaameedyada Israa'iil. Aldeef waxa uu guuray daanta galbeed isaga iyo dhowr ka mid ah madaxda Qasaam ee marinka Qasa waxaana halkaasi ku sugnaa in muddo ah wuxuuna halkaasi ka aasaasay laan ka mid ah guutooyinka Qasaam isagoo markii dambena noqday hogaamiyaha guutada Qasaam kadib markii la shirqoolay Cimaadul Caqiil sanadkii 1993. Maxamed Aldeef waxa uu fuliyay howlgallo badan oo ay ka mid tahay qabashada askari Israa'iili ah oo lagu magacaabo Naqshon kadib markii la dilay Yaxya Ayaash oo ka mid ahaa raggii ugu muhiimsanaa ee ciidanka Xamaas. taariikhdu markay ahayd 5tii bishii January sanadkii 1996 waxaa kale oo Maxamed Deef qorsheeyay howlgallo xiriir ah oo commandoska Xamaas ay ugu argudayeen tacadiyada Israa'iil taasoo keentay in ka badan 50 Yuhuud ah in lagu dilay halkaasi. Aldeef ayaa intii uu xabsiga ku jiray waxa uu Sakariya al-Sharbagi iyo Saalex Shahdiid kula heshiiyey in la sameeyo dhaqdhaqaaq ka gooni ah Xamaas ujeedadiisna tahay inay soo qabtaan askartii iyagoo markii dambena ku guuleystay inay soo qabtaan askartaasi waana guutada maanta loo yaqaan al-Qasaam. Aldeef waxa uu door muuqda ku lahaa horumarinta iyo hagaajinta hubka Xamaas taasoo ka dhigtay mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu muhiimsan ee liiska la doonayo wuxuuna markii dambe noqday maskaxdii hagaysay howlgallada militariga Xamaas waxaana uu ururkan ku soo biiray 80-maadkii isagoo gacan ka heliyay Yaxya Ayaash oo lagu naanaysi jiray injineerka oo lagu tiriyo madaxda ugu caansan Xamaas. dilka Yaxya Ayaash waxay ka dhigtay Maxamed Aldeef inuu hoggaanka xarakada Xamaas la wareego maadaama uu hogaamiye firfircoon oo muhiim u ahaa guutada Ciisadiin al-Qasaam u ahaa. saameyntiisu waxay sii kordhay markii loo magacaabay garabka howlgallada ee Xamaas sanadkii 2002 waxaana ninkan markaasi hortaalay howlo cusub oo ay ka mid tahay sidii loo dhaafi lahaa derbiga adag iyo weliba howlgallada qarsoon ee Yuhuuddu ka wado xadka Qasa taasoo ka dhigtay inuu adeegsado istiraatiijiyad weerar xagga sare iyo weliba hoosaba ah. Aldeef waxa uu ahaa injineerkii dhisay godadka u ogolaaday dagaalyahanada Xamaas inay gudaha Israa'iil ka soo galaan Qasa waxa uu sidoo kale ka mid ahaa raggii kor u qaaday istiraatiijiyadaha duqeymaha ee lagu rido Israa'iil tiro badan oo gantaalo ah. Maxamed Aldeef had iyo jeer wuxuu ahaa dadka aaminsan in xoog looga soo celsho Israa'iil dhulka ay xoogga ku haysato waana tan uu marar badan dagaalo iyo howlgallo qorshaysan oo dhacay bartamihii 90-maadkii uu fuliyay walow waqtigaas la saxeexay heshiiskii Oslo ee sanadkii 1993.